hal arin selfie inay galaan diyaar u maahan inay selfie galaan oo shidaal iska shubtaan arinta kale ee maaragtay inay la doodo maahan intaasi kan maaragtay nidaam tuugnimo maaragtay qaabkaas ay ku iibsanayaan laakiin inay la murmaan oo diidaan saamahan inay dhahaan jangoodna shidaalka jangoon baan ku sameeyay actually anaga ma sameeyay heer federaal baa laga sameeyaa taas laakiin hirgelinteedii in kulay team ba kaalin walba ku madhaban min heer gobol ilaa magaaladan kila ku qoran wixii shuruucda qiimaha inay ku shaqeeyaan inay 17 shuruuc baan siinay inay ku dhaqmaan kaalimuhu taa hirgelinteedii in way noo socotaa meela qaar aan qiimaha wax ka baxsan oo jangood ka baxsan ku iibinayna way jiraan meela qaar oo qiimaha saxdana ku iibinay way jiraan waa still boqolkiiba boqol waa waxaan dhig karna ma aha laakiin sidii hore way dhaamaan inay waxay ku dhaqmayaan sharci darro ay tahay dhammaan kaalimuhuna way ila socdaan in teamka dabagalkiina meel walba ay ku madaba yihiin still arintan caqabadna waxay ka jirtaa dhanka in teamka gaadiidleyda ama shacabka oo adeeg doonanayo kaalin marka imaanayaan hal arin selfie inay galaan diyaar u maahan inay selfie galaan oo shidaal iska shubtaan arinta kale ee maaragtay inay la doodo maahan intaasi kan maaragtay nidaam tuugnimo maaragtay qaabkaas ay ku iibsanayaan laakiin inay la murmaan oo diidaan saamahan inay dhahaan isla markiiba shaqaalaheena halka joogo ama askariga meesha kaalin walba ku qoran inay maaragtay report ka siiyaan baaheed si maaragtay kaalintiiba digniin la siiyo ama la ganaaxo ama maaragtay talaabo kale xigta laga qaado taana dhaqangalkeedii still especially bajajleyda team kan bajajleyda in maaragtay ayaa maaragtay programkan xaggaas uu maaragtay still ka fadhiya dhaqangaltiis laakiin team ground dabagal sameynay way noo joogaan in kulay talaabo walba la qaado kulay dhaliil laga mooyay waxaan ka ahayn kulay adu bilow fiican baa ka jira soo fadhanka shidaalka arinta kale ee maaragtay adeega basaska hadaan ku soo laabto muddo hadda 45 cishaan ka joogno waxaan sameynay 3 team ee isku dhafa in traafikada laba qof oo booliis ama askari ah in jawaanjariyaasha xafiiska dakhliga ka socda iyo hal shaqaale xafiiska in qaybta gaadiidka ee loo yaqaano manga transport teamkan isku dhaf baan waxaan ku kala madhabnay 3 waddo ee magaalada laga baxo mid waa dhankan Kaarmaray Harar u socoto midna waa tan qabri baaxay dhagax buur midna waa tan wajaale team baa ku madhaban muddo almost 45 cisha waxay dhaqan galinayaan shuruucda maaragtay traffic rulesigi darawalkii qiimaha maaragtay ay rakaabku ay kaga soo raaceen gaariga maxaan ku yiraahdaa shuruucda gaariga inuu dhameystiran yahay rakaabka inta qof oo lagu talagalay gaariga muu qaadaya arrimahan ay dabagalayaan run ahaantii arintan darasad yar baan sameynay kan sameynay waxa ahayd halkii bas oo harar ka soo baxa 150 buu xagga jigjiga ku imaanaya isla baski jigjiga markuu ka baxay harar u sii laabanay ku sii laabto 350 buu qaada almost waxa u dhaxeeya farqiga 200 ba difference ga waa marka halkaas anaga ka duulayna baan team baan ku madawno teamkan waxyaalahan oo shuruucdan dhan bay maaragtay gaariga eegayaan marka expect gareynayaan shaqaalaha dakhliga already la taagan traffic baa la taagan oo sharci shuruucdiisa iyo programkii uu ka eeganay wixii qaldamo oo qalad sameeyana maaragtay aday xariiq tahay police baa la jooga hadii dakhli ganaax tahayna shaqaalaha dakhliga immediately receipt halka ugu jaray baa jirta marka in team walba hadda shaqo fiican bay hayaan taana ways program hadda uu dhaqan galay maaragtay walow aan inaan kormeer joogta ku sameeyno teamkii intaan dib u yeerno aan report kala qaadano taa baa noo dhiman first phase 1 kala qaadanay phase kii labaad aan wali kala qaadanay weeyaan reportkii teamkaas taana shaqadaasna si fiican bay socotaa in run ahaantii waxyaalo fara badan baa la qabtay wixii hadda sidii hore oo maaragtay sharci darro lagu dhaqmi jiray oo sida sharci laga dhigtay hadda inay sharci darro tahay baa la fahmay taana dhanka gaadiidka waxay ka jirtaa caqabada waa dadka still shacabku ba caqabad ku ah for example trafficada gaariga in waa la istaajinaya dadkiiba la warshin misaal laga qaaday waa dhayo interview gareeyay actually footage kan iyo team wariyaashan u dirno wasiir ku xigeenka ay israaceen baa laga duubay baa jirta oo shacabka kula dagaalamay maxay idinka galay annaga soo siisan qiimaan waxba idinka ma galin ay dhaxayaan oo alishaan waxay
taageerayaan darawalka si aan tallaabo laga qaadin ama la ganaaxin taana caqabad dhanka shacabkan oo ay ka jirtaa ku xidhnow lana wadaaga asxaabtaada faalladaadu waa muhiim Dagaaran Media waa saaxiibka dadweynaha